رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi guuleed iyo Suleymaan Maxamed oo ah xeerlaaliyaha qaranka oo shir jiraa'id maanta ku qabtay garoonka aadan cadde ayaa sheegay in ay u ambabaxayaan ka qaybgalka dacwo afeedka badda oo lagu wado in ay bilaabato bartamaha bishan March gudigan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi guuleed iyo xeerlaaliyaha qaranka mudane Suleymaan Maxamed iyo xeerlaaliyihii hore Axmed Cali Daahir kana mid ahaa madaxdii ka soo shaqeysay furitaanka galdacwadeedka badda ee maxkamadda caalamiga ah kala hore iyo Yuusuf Garaad Cumar oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya ugu qaabilsan badda cas iyo gacanka Carabta xeerlaaliyaha qaranka dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ahaa madaxdii hadallada ka jeedisay shirka jiraa'id ayaa ku faahfaahiyay sida ay dawladda Soomaaliya u rajeynayso guusha dacwadda markii uu dhageysiga soo gabagaboobo isagoo sheegay inay dawladda federaalka diyaar u tahay ka qaybgalka dacwadda badda oo sida uu sheegay aan laga hagran dhamaystirka tasiilaadka iyo agabka lagama maarmaanka u ah dacwadda badda xeerka wuxuu tilmaamayo waxay ku dhisan tahay qareenadan doodeeda waxay ku dhisan tahay in Soomaaliya ay dalbanayso in xariiqdinta iyo go'aamada ay gaarayso maxkamadda lagu saleeyo mabaadi'da waaweyn oo ka mid yahay equal distance oo ku calaamaysan kuna dhex jira xeerka badda caalamiga badda keeska ay Soomaaliya geysatayna waxa uu ku tilmaaman yahay asagana qodobka qaybta 15aad ee xeerka badaha caalamiga رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi guuleed oo ka hadlay shirka jiraa'id ayaa sheegay in ay ku haweyn yihiin guusha dacwadda isagoo ka codsaday ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta in ay doorkooda qaataan saaka waxa farxad noo ah aniga iyo wafdiga ballaaran ee aad u jeedaan inaanu ambabaxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhaxaysay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan ee soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd ee dhageysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo cadeymaha waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan umadeed iyo halgan shacab ay tahay dacwad taariikhi ay tahay haltaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafadda haddaad tihiin muwaadinnimo iyo Soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan maxkamadda caalamiga ah ayaa sheegtay in ay tahay fursadii ugu dambeysay ee dhageysiga dacwo afeedka badda ee Soomaaliya iyo Kenya kuna beegan bartamaha bishan March sanadka 2021 waxaana ay diiday in ay mar kale dib u dhigto dhageysiga maxkamadda mar saddexaad ee Kenya codsatay in dib loo dhigo dacwadda codsigaasi oo ay maxkamadda caalamiga ah gaashaanka u daruurtay Nuur Maxamed Abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cadde